السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة الكسود وهذا channel كسويال كميد يقضبدين ووين ما توحى كليهين دولة فدرالك يا علماء وتينك مقالة المقدسة وسكفراعي أفر قضب هدوم هاي كليهين أفرطاس القضب ففين دارة يكون مقل دونتان فرين كتمد مدحوينها الصومالية ونصعة الشعب كالصومالية دي قضبت واركن الدبدن ووين وحا كمدا وروك التاليبان أو ملايكان كو إيديي inuu xadgudub ku sameeyay heshiiskii Doha magacaygu waa Maslax Masiin fadlan haddaan u cusub tahay channelkan subscribe noo saar si aad la socoto wararkeena iyo warbixinadeena ugu dambeysay adigoo mahadsan haatan ku soo dhawaada warkii faahfaahsan wasiirka qaabta arrimaha diinta Sheekh Nuur Maxamed Xasan iyo culimada diinta Soomaaliyeed oo shalay ka wada hadlay dardargelinta dadaalada lagu tacaalayo cudurka COVID-19 kulankan waxa goobjoog ka ahaa mas'uuliyiinta ka socotay xafiiska ra'iisul wasaaraha dhaqaatiirta iyo hay'adaha amniga dalka waxaa la isla gartay sida ugu wanaagsan ee wax looga qaban karo faafitaanka cudurkan safmareenka ah ee ku soo kordhaya dalkeena waxaana la isla gartay afar waxyaabood in culimada kamida dadka ay bulshada dhegeysato ay kaalin weyn ka qaataan wacyigelinta bulshada ee ku aadan cudurkan khatarta ah labo in la dhiso guddi ka shaqeeya taakulaynta iyo caawinta qaybaha nugul ee bulshada uu saameyn nololeed ku yeelanayo cudurka coronavirus maadaama ay nagu soo aadan tahay bisha barakeysan ee Ramadaan saddex guddi ka kooban dowladda khubarada caafimaadka iyo culimada diinka ayaa qiimeyn doona go'aan ka gaari doona waxa laga yeelayo arrinta masaajidada kadib markii cilmi baaris diini ah iyo mid caafimaad la sameeyo afar waxaa markaa la falayaa ganacsatada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan inay u turaan shacabka Soomaaliyeed oo aysan sare ugu qaadin qiimaha waxyaabaha dawoomiga ah nolosha shacabka Soomaaliyeed madaxweynaha Soomaaliya ayaa soo saaray qoraal uu kula wadaagayo shacabka Soomaaliyeed fariin ku aadan cudurka COVID-19 madaxweynaha ayaa ugu horeyn dadka Soomaaliyeed ugu baaqay in lagu dadaalo taxadarka iyo feejignaanta maadaama ka hortagga cudurkan uu yahay xalka ugu habboon sidoo kale madaxweyne Farmaajo ayaa ugu baaqay shacabka inay soo gurmadaan oo ay garab siiyaan gaar ahaan ganacsatada oo mas'uuliyad adag ay saaran tahay waqtigan iyadoo loo baahan yahay inay naxariistaan dadkooda dhibaataysan una dhimaan qiimaha badeecada sida lagu yiri qoraalka ugu dambeyntii madaxweynaha ayaa caafimaad u rajeeyay dhammaan bukaanada uu haleelay cudurkan COVID-19 alena waxa uu naxariis u weydiiyay muwaadiniinta dalka uu geeriyooday cudurkan khatarta cudurkan coronavirus ayaa dalka si weyn looga dareemayaa kadib markii ay korortay tirada dadka uu soo ritay waxayna haatan maraysaa tirada dadka la shaaciyay ee ku dhacay gudaha dalka 21 ruux taliyaha ciidamada Mareykanka ee ku sugan dalka Afghanistan ayaa magaalada Doha kula kulmay hogaamiyaha ururka Taliban si looga xaajood baahida loo qabo in la yareeyo rabshadaha ka dhacay dalkaasi kulankan dhex maray hogaamiyaasha Taliban iyo taliyaha ciidanka Mareykanka ee Afghanistan ayaa la qabtay habeennimadii xalay waxa uu yimid xilli ay kooxdan wax iska caabina ku eedeeyeen Mareykanka inuu ku xadgudbay heshiiska ay wada saxiixdeen bishii February ee sanadkan heshiiskan ay Mareykanka iyo Taliban kala saxiixdeen ayaa sheegaya in ciidamada caalamiga ah ay si tartiib uga baxaan Afghanistan taabadalkeedana ay Taliban dhammaan qaado nabad ayaa ah fursadda ugu wanaagsan ee lagu dhameyn karo colaadda 18 sano jirsatay Afghanistan gudahaan intaas ayaa kusoo gabagabaynaa warkeena warkan inta kulmi doono aniga Maslax Masiin sidaas iyo amaana Allah